wacan oo wanaagsan dhammaan akhyaartana daawanaysa ay ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii xaqiiqa raadis qodobadan ku soo qaadanayno waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo maanta booqasho ku yimid jigjiga iyo waxyaabaha yaab kale ee uu kala kulmay booqashadiisa jigjiga qodobada iyo qodobo kaloo caalami ayaan ku soo qaadanaynaa barnaamijka ku soo dhowaada waa hagaag aynu ku bilowna barnaamijka ee ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa maanta booqasho ku yimid magaalada jigjiga waxaanay noqotay booqasho taariikhi ah oo markaasi habid aan hore u dhicin marka ra-iisul wasaare soomaaliya uu halkaasi booqasho ku tago laakiin madaxweyne soomaaliya wuu ku tegayo xasan sheekh maxamuud ayaa jigjiga tegay waqtigii tigreegu ay xukumayeen etoobiya aduu calaa kulli xaal haata booqashada uu ku tegay ra-iisul wasaare xamse cabdi barre muxuu kala kulmay waxa uu kala kulmay booqashadaasi laba dhinac waxa weeyaan mid dhaleecayn kulul iyo cambaarayn kulul buu la kulmay oo lagu tilmaamay inuu yahay ra-iisul wasaarihii taariikhda ugu xumaa abid baa layidhi ee markaasi soo mara soomaaliya waayo waxay dhahdeen dadka qaar mogtay dee falanqeeya waa kala barh baaba la odhan karaa mujtamaca soomaalida waa la kala qaybsan yahay qayb waxa ay leedahay markaasi waa ra-iisul wasaarihii ugu xumu taariikhda xumaa dhulkiisii oo la gumaysanaya etoobiya haysato ayuu haddana haatan isagoo mas-uul saraa ku faraxsanya oo booqday ayay qaar sidaa u dhigayaan barihii bulshada marka la eego oo aad baa loo dhaleecaynaya waxaana la sheegay haatan xitaa dadka deegaanka soomaalida jooga laftarkooda kala qaybsan oo markaa sheegay baraha bulshada markaad eegtid qaarkood waxay cambaareynayaan booqashada ku yimid oo ay ku tilmaameen ra-iisul wasaare jaahilo iska socda yacni aad baa loo cambaareynaya dadka oo aan dameer lahayn oo dadkiisiiyo etoobiya xoog ku haysata bay leeyihin buu markaa ku faraxsan yahay aduu hadallo kulul baa loo soo jeedinaya dhinaca kale aad baa loo soo dhaweeyey ra-iisul wasaaraha madaxweyne mustafa cumar si weyn ayuu moogtay usoo dhaweeyey odayaashii iyo waxgaradkii iyo moogtay dadkii hogaamiyaasha beelaha aad baa madaxtooyadii moogtay DDS deegaanka soomaalida loogu soo dhaweeyey taariikhda markii ugu horeysay baanay noqotay calankii soomaaliya laga dhex taagay jigjiga weliba madaxtooyadii deegaanka soomaalida calankii buluuga laga taagay oo halkaa ka babanaya dad badan oo qowmiyadda xamaarada moogtay iyo qowmiyadaha kalena waa xanaaqeen calankii soomaaliya maxaa loogu dhex tagay bay leeyihiin laakiinse dhinaca soomaali ahaan marka la eego aad bay ugu farxeen in marka calankii soomaaliya laga dhex taagay deegaanka soomaalida gaar ahaan madaxtooyada iyadoo oo taariikhda la og yahay in iska daa calan soomaaliya leeyahay jigjiga laga taagay waxaa hore u jirtay in mid ka mid ah moogtahay maayaradii soo maray jigjiga ayaa waxaa la yidhi beri biraha laydhka ayuu buluug ka dhigay moogtahay buluug keliya hadda rinjigaa buluug goon buu mariyey markiiba xilkaa laga qaaday oo moogtay birtaa la dhaafiyey iyadoo la yidhi waxaad doonaysaa inaad soomaaliya hoosta ka jeceshay baa lagu yidhi buluug oo dhan ka xanaaqi jirtay etoobiya maantana calankii soomaaliya ka dhex taageen markaa madaxtooyadii dowlad deegaanka soomaalida taas ayaa loo arkaa markaasi marka dhinaca kale positifeka laga eego in ay tahay horumar weyn oo markaa iyo taariikhdiiba isqoraysay baa la yidhi oo moogtahay taariikh cusub oo ayaa haatan ka curatayba oo moogtahay iyadoo in calan shay yaroo buluuga aad qaadatid awal lagu xiri jiray haatan in calankii soomaaliya ay ka dhex taagaan madaxtooyadii deegaanka soomaalida arrinkaasi ayaa horta waxay noqotay mid ay ku faanayaan dadka deegaanka soomaalida iyo soomaaliyada kale waxaa kale oo jirta markaasi arrinkaasi in aad marka labada wadan xiriirkooga moogtahay iskugu soo dhawaadeen iyadoo oo hore loo arkayay in doorashadaasi la doortay ra-iisul wasaare xamse ay keeni doonto etoobiya khilaaf u keeni doonto maadaama ogaadeen yahay ogaadeena haddana halkan deegaankii soomaalida ay joogaan oo markaa ay kala gurasha jirto amaba in deegaankii soomaalida la rujinayo oo la qaadayo moogtay ay goosanayaan oo kale ayaa markii hore loo turjumayey aduu si kasta ha ahaatee ninkii xamse barre haatan odayaashii odaybeelaadyadii cuqaashii yacni siyaasiyiintii kaag calanka buluugga ee soomaaliya ku sawirayay mustafa cajar soo qaaday kiiba caawa la jarayaa halkaasi ayaana moogtay ka socotaa bidhiil marka qolo walba si dee moogtay u aragtay qolo way ku faraxsan tahay waxay leedahay waa horumar weyn oo maadaama haatan calankii buluugga laga dhex taagay deegaanka soomaalida waxa ay noqonaysaa bay leeyihiin horumar weyn oo taariikhdaas qoraysa qoro kalena way cambaaranayaan waxay leeyihiin waxa weeyaan bilaad amiiro dalkiisii iyo xoog lagu haysto u tegay marka labada dhinacba way hadlayaane aduu dhinacii aad tahay iska wada hawshaadu weeyaan barnaamijkan intaas ugu dhayay taniyo kulanteena dambe nabadgelyo